Okay, waa bilaabanayna saaxiibayaal aduu ilaa yiraahdo soo dhawaada dhammaantiin waa soo dhaweynaynaa waxaa qadka ku jiro sidoo kale Ustaad Mustafa oo idinla hadli doono waxaan rabaa in aan marka hore ku furfuro hadalkayga ama aan idinla socodsiiyo Digaal Academy sidii ay ku asaasantay iyo xaaladeeda sidii ay soo martay intaba iyo haddeertaan oo ay ka tirsan yihiin arda ayadana market structure ka dhigato iyo istiraatiijiyada cusub oo hadda Digaal Academy ay soo bandhigayso waxay ku saabsan tahay xaaladeeda iyo qaababkay u bixi doonto duwaleedmo Ustaad Mustafa gadaal ka sharaxi doona waxaan rabaa inaan idinla wadaago Digaal Academy waxay ahayd akademiyad si qoto dheer u soo bayaamisay suuqan market structure iyo patterns-ka kala gedisan sidoo kale arda badan oo ka aflaxday Digaal Academy iyo inta haddeertaan ku jirtaba waxaan rabnaa inaan ugu bishaareeno bulshada doonayso in ay market structure ka barato in Digaal Academy ay ka dhigi doonto bilaash oo si bilaash ay ku baran doonaan haddii la yiraahdo website-kana aan u furi doono oo marka ka daalan doona casharada ku jiro market structure-ka sidoo kale casharada cusub oo duuritaanka uu ku socda ayadana aan soo gelinayno si bilaash ayay ku daawan doonaan ama ay halkaas cilmigaas ugu kororsan doonaan taa maxay ka dhigan tahay marka muhiimadda aan bilaash uga dhigayno maxay tahay market structure-ka muhiimadda maxay ahayd haddeertaan istiraatiijiyadan ay soo socotana ay u noqon doonto istiraatiijiyad base u ah ama aad lacag ku baran doontaan maxay ku kala duwan yihiin labadooda oo su'aalo kulley aad isweydiin doonto in badan waxay ahayd muhiimadda qofka markii uu rabo inuu suuqan barto waxyaabo badan oo waxaa jiro ama istiraatiijiyada badan ama qaabab kala duwan oo aad suuqa mar waliba aad isha ku hayso markaad doonayso inaad barato market structure-ka iyo patterns-ka suuqa lagu ganacsadana waxay ka ahaayeen qayb istiraatiijooyinkii iyo waxyaabaha forex ay ku shaqeyso iyo qaababka aan soo bandhignay intaba sidaas darteed qofka markuu rabo in uu wax barto ama suuqan uu indhaha rabo in uu barto wax inuu ka barto muhiim waxa ah in uu structure-ka suuqa inuu yaqaano nature-ka suuqa inuu yaqaano patterns-ka inuu kala yaqaano taa marka waxay sahlaysaa in trade lane-kiina qofkii uu sawiro in uu helo jihada ay lacagta u socotana in uu markaas helo taa marka waxay ka saacidaysaa qofkii in si kalsooni leh uu marka suuqii u analyze garay karo intaas markaan uga soo gudbo Digaal markii aan aasnay oo ay hawada soo gashay waxaan u sheegnay ardadii cusbayd oo markaas iska diiwaan gelisay Digaal qaarkiin in haddeertaan halkan ay ku jiraan waa macquul in aan soo wadno istiraatiijiyad cusub ayadana oo price action-ka oo aan maxay ahayd suuqa mar waliba waxaan ognahay in uusan bixinin picture perfect in uusan bixinin ama sawir qurxan in uusan bixinin taa maxaa loola jeedaa suuqa haddii uu ka dhaco waxyaabaha kala duwan ee nature-ka uu sameynayo suuqa mar waliba waa qasab pattern-ka haddaadan fiirinaynin price action-ka inaad fiiriso waa qasab sababta marka aad u dareemaysid markaad market structure-ka aad barato inay price action-kii inaad fiiriso inay kaaga baahan tahayna waa suuragalnimada iyo waxyaabaha experience-ga aan ku leenahay oo aan doonaynay mar waliba inaan idiin soo bandhigno aan idiin soo gudbino sidaas darteed waxaad arkaysaa qaabab kala gedisan in suuqa markii uu impulsive ka dhaco dabadiis falaaga imaanayo marka qaar inuusan picture perfect falaaga inuusan ku siinaynin waana sababtii aan price action-kan mar waliba in baahi loo qabo qofkan uu ka dhigayo mid xoojiso istiraatiijiyadiisa sababtoo muhiimaddu waxay tahay suuqan inaad ka ganacsato ma ahan kaliya inaad hal istiraatiijiyad intaad ku dhigto oo aad dhahdo tan baa igu filan tan baan sameynayaa wixii macnaha ay siiso muhiimaddu waxay tahay suuqan in adiga aad u baahan tahay cilmigiisa inaad barato kadibna istiraatiijiyada ka maqan iyo xaaladaha suuqa uu sameynayo inaad fiiriso mar waliba waxaad arkaysaa ama qaababka nature-ka suuqa uu ku socdo haddii aad saadaaliso market structure-ka inta experience aad ku leedahay ama ardada experience-ga ama macallimiinta dadka ah oo market structure-ka dhiga intaba qaabka uu soo reversal gareeyo pattern-ka qaababka patient-ka aad ugu noqonaysid inta lacagta ay soo dhameystirayso
intaba waiting ay kaaga baahan tahay price action ku waiting uu leeyahay oo qasab ma jirto suuqan istiraatiijiyad aanan beeshin ahayn ama istiraatiijiyad aanan maalin walba suuqaad uga ganacsanayso ma jirto mid waliba beeshin ay leedahay balse way kala fududahay in aad kala qaadato trade-ka sidaas darteed price action wuxuu uga markaas degdeg badan yahay market structure-ka beeshinkiisa ayaanan aad u tiro badnayn waana muhiimadda ay leedahay marka ka ganacsiga aad ku ganacsanayso price action-ka inuu ka degdeg badan yahay market structure-ku waa qaabka markaad u fiiriso suuqa nature-ka uu dhaqmaayo iyo waxyaabaha kuu confirm gareynayo inuu pattern-ka samaysmayo in kale waa structure-ka suuqa uu samaynayo balse ogow waxa ku hoos duugan waa price action-ka haddii aadan fahansanayna natiijo kama keenaysid suuqan sidaas darteed waxaan ugu bishaareynaa bulshada doonayso in ay barato cilmigan in structure-kii ama market structure-kii Digal Academy lacagta ahaa inaan bilaash ka dhignay oo website-ka si bilaash ay uga fiirsan karaan una fasaxi doonaa dawladnimo istiraatiijiyadan kor iyo hoos ayadana in maxay ahayd akademiyada ay noqon doonto midda kaliya diiwaangelinteeda ay ka socon doonto market structure-ka uusan diiwaangelin dambe yeelan doonin sidaas darteed waa idin soo dhaweynaynaa dhammaantiin inta rabto inay market structure-ka dhigato si bilaasha isla habeen dambaba hadduu ilaahay yiraahdo waa iska diiwaangelin kartaa Digal Academy waadna kala socon kartaa halkaas sidoo kale YouTube-keena casharada markii hore way ku jireen ayagoo aan siinaa marka asagana waan soo gelin doonaa balse website-ku wuxuu ka saacidayaa sida casharada ay isugu xigeen ayaad maxay ahayd ka helaysaa balse YouTube-ka isku dhex yaacsan yahay mar walba marka istiraatiijiyadan kor iyo hoos maxay tahay maxay uga duwan tahay market structure-ka intaas waa waxyaabihii aan ka soo hadalno waay inta kalena waxaan noo dhammaystiri doonaa duwaalidmo Ustaad Mustafa oo khadka ku jira sidaas darteed waa soo dhaweynaya Ustaad Mustafa asagana wuu nala hadli doonaa wuuna xilliga diiwaangelinta ay bilaabanayso maxay ahayd iyo qaababka ay u baxayso istiraatiijiyada intaba wuu noo sheegi doonaa sidaas darteed waxaan ognahay wax yar oo for example ah ayaan halkan idinka siin doonaa oo runtii aad iyo aad maxay ahayd price action-ka ma aha wax aan xayeysiinayo maaha market structure-ku waa istiraatiijiyad dhammaystiran qofkii si wanaagsan u fahmana uu ku ganacsan karo ama uu ku ganacsanayo qof waliba oo market structure-ka bartay waa istiraatiijiyad uusan u baahnayn inuu meel kale aado balse muhiimadda aan rabo inaan macnaha ka dhawaajiyaa waxay tahay qaababka adigu aad uga ganacsan karto mar waliba suuqa oo ah marka uu ku siiyo waxaad arkaysaa impulsive inuu dhacay structure-ka qof waliba uu yaqaan oo cid diidaysa maanta ma lahan steep flag inuu noqdo large flag inuu noqdo ama tight flag inuu noqdo intaba inaan halkaas ka helno tritage inuu soo dhamaystiro suuqi si kalsooni qofkii uu ugu galo flagaas inuu yahay flag rasmi ah oo uu qaadan karo sidoo kale steep flag-ga mararka aan ka hadlayno structure-ka qaab noocan oo kaleeta ah ayuu ku samaysmaa balse price action-ku marka aad aragto xaalad noocan oo kaleeta ah suuqii inuu samaystay qaab noocan oo kaleeta ah suuqii inuu samaystay waxaad arkaysaa inaadan helaynin kalsooni weyn oo taa ka dhigan price-ka daadan fahansanayn price action-ka daadan fahansanayn qaab waxay kugu noqonaysaa markaas adiga aadan kalsooni suuqii aadan ku gelin aadan dhihin muxuu noqon doonaa flagan kadib lacagta inay sii daadato mar walibana waxa laga wada faa'iido waxay tahay impulsive-ka dabadiis confirmation-kana qofku waxa siiyo ama price action-ka ha noqdo ama ha noqdo structure-ka ha noqdo waa impulsive-ka sida continuation pattern-ka loo kala qaadanayo marka high-ga iyo low-ga ama kor iyo hoostu waxay ka saacidaysaa markaas in aad si dhakhsi leh aad u fahanto pattern-kaas continuation-ka ama maxay ahayd price-kaas continuation-ka inaad ka faa'iidaysatid oo aad markaas qaadato marka in badan waa ka hadalnaa casharadeenii structure-ka ahaa ardada experience-ga ahayd oo sidoo kale Digal Academy lagu furay waa u sheegnay inaan soo wadno istiraatiijiyadan cusub iyo mar dhow inay suuqa soo gali doonto 3 bilood ugu horeysa ama 2 bilood ugu horeysa way sugayeen marka intiinaba waxaa idin leenahay saaxiibayaal istiraatiijiyada rasmiga ah oo maxay diiwaangelinteeda ay bilaaban doonto waxay noqon doontaa kor iyo hoos strategy
sidoo kalena market structure-ka haddii aad doonayso inaad ku indhaqaado suuqii aad ka fahanto amaba isaga aad ku ganacsato si bilaash ay Digal Academy kaaga dhigtay oo website-ka si bilaash ah isaga diiwaangelin kartaa markaasna way kuu furmayaan casharada dhan halkaasna waa ka daalacan kartaa siday u kala horeeyaan iyo wax walibana basic-ga qaybtii dhexe qaybtii sare intaba waa ka daalacan kartaa markaad barato nature-ka suuqana oo aad sawirto trade lane-ka waxay uga duwan yahay marka price action-ka waa labada arrin oo ay ku kala duwan yihiin structure-ka iyo price action-ka uma baahnid trade lane in aad sawirto uma baahnid waayo meesha aad uga baahan tahay structure-ka inaad trade lane sawirto sidoo kale possibility-ga iyo probability-ga aad fiirinayso meesha ma aha meel trade lane aad ku sawiri doonto sidaas darteed price action-ku wuxuu ku fiican yahay qofka structure-ka fahansan ayaa ayadana si dhaqsila ula qabsan kara ama si dhaqsila u fahmi kara sababtoo ah wuxuu ogyahay suuqa descending-ka markuu sameynayo ama ascending-ka markuu sameynayo inuu pattern sameynayo pattern-kii ascending-ka ama descending-ka price action-ka iyo structure-ku waxay ugu kala duwan yihiin malaha waa isla pattern-kii balse meeshan trade lane price action trade lane ma isticmaalaysato trade lane-ka ayaa hadhow kaa hari doono meesha pattern-iska trade lane-ka 3 touch-kiisa aad ku raadinaysid mar waliba xaaladahaas waa waxaadna kusii ogaan doontaa hadduu ilaahay yiraahdo marka aad sii dhex gasho price action-ka oo aad fahanto oo laga yaabo haddeertan structure-ka inaadan maxay ahayd mararka qaar aadan aaminin pattern-kii asagoo isdhamaystiray ayuusan soo laabanaynin qof waliba ama macallin waliba oo maxay ahayd market structure-ka dhigo wuu ogyahay price action-ka pattern-ka haddii uusan fiirinaynin waxa uu fiirinayo waa price action-ka wuu ogyahay balse istiraatiijiyadda uu dhigayo ee market structure-ka ayaa waxay ku qasbaysaa markaas in uusan gudagelin price action-kii waayo hadduu ka sheekeeyo wuxuu ku qasban yahay inuu casharo kasoo diyaariyo sidaas darteed Digal Academy intii hore oo ay ballan qaadaba waxay ahayd inuu price action ku soo socdo ayadana maxay ahayd soo bandhigi doonto maantana waxaa la gaaray waqtigii ay soo bandhigi lahayd Ustaad Mustafa soo dhaweynaya Ustaad soo dhawow Ustaad Mustafa idinla hadli doona haddii waa leen marka soo dhawow Ustaad السلام عليكم دمانتين أدبي السلام يا سلام كبعدي وحركين إن دمانتين والعافمات قبطان دمانتين أدبي في عنتين فاملي يو إذنك نفس الدين بقى سلام كبعدي وحربا إن وحي قطع طابطو استراتيجية دينا كوري هو استراتيجي هرتا وقهرين ديان دينا نقل عن خير الله وحكي رب أحسن dhalinyar badan waxaa jirta ila soo xiriiraysa social media-ka igala soo xiriiraysa oo badanaa ii soo dira akoonadooda ii soo sawira qaar akoono dad ay ka soo ururiyeen haya lacaga ka soo qaadeen ku ganacsada qaar gubiyey qaar faa'iido ma garanaysaa sameynayay dadku isku dhex jiraan waxaa jira haddaba muddooyinkii u dambeeyey waxaan arkay dad badan oo dhalinyar ah oo ila soo hadlaysa oo ilaa forex waan ka niga jabnay forex waa faraha ka qaadayna faa'iido joogtaan ka sameeynay waxaan nahay dad marketkii saadaalinaya oo maanta dhan suuqii saadaalinaya jihadii aan marketka u dirnay aadaya laakiin waxaan ugu adag in aan ka ganacsano waxaa jira haddaba arday badan oo Digal Academy ku soo biirtay iyagoo caqabada qabay maantana dad ka ganacsanaya market structure-kii oo aqoon ku filan iyo aqoon ay entry ku qaataan iyo aqoon ay trade ku falanqaystaanba og garanayana marka uu suuqu entry bixinayo dhalinyartu waxay isku qaldaan badanaa haddii suuqi samaysto structure in la joogo waqtigii entry laga qaadan lahaa ugu marka suuqu structure ku samaysto wuxuu ku sameynayaa entry buu bixinayaa entry markuu bixiyo kabacdi marketkii waad ka ganacsan karaysaa laakiin waxyaabo badan oo aan eegay dad badan waxaa jira waxyaabo saasi ka qaldanaayeen hase ahaatee maanta market structure istaraatiijiyadaas waxaa ardayda iyo dadka ku jira ku xidhan group public ku siinayna koorsadaas inay free tahay qofkii rabaana uu baran karo waxaa casharo kale oo iyaguna taxana oo socon doona oo insha Allah isbuuc walba hal cashar ama laba cashar ayaa iyaguna si taxana website-ka gudihiisa u soo geli doona waxaana noqon doontaa istaraatiijiyad dhalinyartii ay free ku helaan haddii aan taa ka imaado waxaa istaraatiijiyadda Korea strategy
market structure-ka waxaa la baranayay marka istaraatiijiyada la baranayay structure-kii iyo nature-kii uu suuqa samaysanayay structure-kiisi laakiin istaraatiijiyadan Corio strategy waxaan ku baranaynaa price action-kii baan ku baranaynaa qiimihii waxa uu sameynayay baan baranaynaa kadib istaraatiijiyadan waa istaraatiijiyad boqolkiiba boqol profitable ah waa istaraatiijiyad mar walba ay fudud tahay inaad ka heshid trade aad ka ganacsato waa istaraatiijiyad ay fudud tahay dadkii markaas inay bartaan oo waqti yaroo kooban ay ku baranayaan istaraatiijiyadii marka istaraatiijiyad la qaadanayana laba wax unbaa muhiima inuu qofkii ku qaato qodobka koowaad oo aad u muhiimsan oo ah ma tahay istaraatiijiyad profitable ah ma tahay istaraatiijiyad faa'iido joogta aan ka samaynayo akoonkaygiina ku kabacayo muhiimaddu waxa weeyaan forex ugu jirnaa inaynu forex lacag ka samayno haddaba systemkaaga ugu horreyn waa in magaranaysa aad ogaataa ma yahay system faa'iido joogta aan ka samaynayo qodobka labaad ma yahay system aan muddo kooban ku baran karo sababtoo ah waxaa jira dhalinyar badan oo hore ugu soo jiray forex maantana ilaa haddana aan profit samayn haddaba istaraatiijiyadiina kor iyo hoos muddo kooban 2 bilood waa ku baran karaysaa waana ku ganacsan karaysaa dhalinyartii waxaa ugu bushaareynaya markaas hore ugu soo jirtay suuqa qofka imka bilaabaya isagana haddii uu dadaalo 2 bilood waa ku ganacsan karaa 3 bilood ugu dambeyn 3 bilood wuxuu ku noqon karaa qof experience ah istaraatiijiyadii si fiican u fahmay haddaba kulley hadalka dhammaantii waxaa wada yidhi ustaad Jelani waxba hadalka ku dheeraan mayno laakiin waxaa idin ogeysiinaynaa in istaraatiijiyadii maanta Corio strategy ay caawa bilow ay tahay oo ay caawa wixii ka dambeeya ay ardaydii casharadii ay qaadanayaan waxa kale oo aan rabaa inaan ka dhawaajiyo in haddii aan anagu jecelnahay in markasta akaademiyad ahaan iyo macallimiin ahaan aanan jeclayn arday badan in ay meeshii koorsadii iska soo diiwaangeliso sababtoo ah ardaygii waxaan rabaa inaan xaaladiisii ogaano inaan ku oran karno hebelow maanta trade noo falanqe hebelow waxaan qabo oo markii ardaydii kooban tahay waa wax u samayn karto laakiin markii ardaydii ciidda ka badato waa wax magaranaysaa aanan samayn karin sababtoo ah waxay qaadanaysaa dhowr saacadood inaad kolba qof aad tiraahdo hebelow shaashadii noo sheegara hebelow waxaan waa maxay su'aalahaas oo kala weydiisay marka waxaan idiin sheegayaa inaan qaadanayno arday kooban ardaydaasna markaas muddo haddii ay suuqa hore ugu soo jireen muddo 2 bilood ah aan istaraatiijiyadan kaga dhigi doono dad ganacsadayaal ah maadaama markii hore ahaayeen dad sawirayaal ah sida hore uga dhawaajinay waxaa jira dad badan oo systemkan isticmaali jiray oo maanta istaraatiijiyadana Corio strategy isticmaala waa dad ajaanib ah oo kolley dhammaantiin aad si fiican wada garanaysaan aanan ku soo bandhignay groupkeena public ah haddii aad dib ugu laabataan insha allah saaxiibayaal dhammaantiin waa idin salaamaynaa insha allah waxaan idin rajaynaynaa in aad magaranaysaa suuqa aan lacag fiican ka samayn doono inaan suuqa maadaama waqti badan waynaga soo lumay aan taaganahay maanta waqtigii aynu inagu lacag ka samayn lahayn nolosheena isku filaan lahayd haddii ilaahay ilmo insha allah waa idin soo dhaweynaynaa dhammaantiin waxaa ku wareejinayaa ustaad Jelani dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad mahadsantahay ustaad Mustafa saaxiibayaal sidaas ayaan zoomkeena kusoo gabagabeynaynaa caawa hadduu alla idmo cidii doonayso inay markaas iska diiwaangeliso istaraatiijiyadaas kor iyo hoos ayadana ustaad Mustafa la xiriiraysaa qofkii doonayo inuu si bilaasha ku barto structure-ka iyo nature-ka suuqa market structure-kii iyo casharadii hore ee Digal Academy ugu jiray iyo kuwa cusub oo haddeertaan aan akademiyada ku shubayna intaba asagana si bilaasha ayuu ku heli doonaa ilaa iyo habeen dambe dual idmo iska diiwaangeli doonaa si bilaasha ayuu ku heli doonaa marka muhiimaddu waxay tahay suuqa inaad nature-kiisa fahantid patterns-ka inaad fahantid in maxay ahayd qaabka uu u dhaqaaqo charts-kaas inaad
ogtahay waxay kaa saacidaysaa hadhow inaad la qabsato price actionka inaad la qabsato iyo in aad hadhow ka ganacsi aad ka samayso ama suuqii aad ka ganacsato sidaas darteed waxaa inoo ballanah saaxiibayaal akademiyadda ayaa inoo ballanah wixii faahfaahin ah oo kalena dib ayaan kasoo sheegi doonaa haduu alla idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu